taariikhda warbaahinta dadka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah warbaahinta xilli hore hana qaaday marka loo eego warbaahinta Afrika waxayna soo martay heerar kala duwan balse inta aanan u guda gelin taariikhda warbaahinta Soomaaliyeed waxaa xusid mudan in warbaahinta caalamka ay bilaabatay muddo aad u horeysay gaar ahaan dowladaha reer Yuruba warbaahinta dowladaha reer Yuruba ayaa hana qaaday gaar ahaan wargeysyada oo noqday warbaahintii ugu horeysay caalamka Dr. Abukar Maxamed Cabdi Boston oo ah saxafi rugcadaha ah isla markaasina ah diblomaasi Soomaaliyeed oo degan dalkaasi Canada ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda warbaahinta ay soo martay wariye Xuseen Cismaan Saxnuuni aad baan ku salaamay marka hore marka labaad waxaan kaaga mahadcelinayaa su'aasha muhiimka ah ee aad weydiisay saxaafadda Soomaaliyeed runtii waxay qayb ka tahay saxaafadda dunida ee caalamka marka taariikhdeeduna halkaas bay soo galaysaa marka haddii aan ku hormaro saxaafadda caalamiga sanadka markuu ahaa 1400 dhalashadii nabi ciise kadib ayaa xoogsato isugu jiray Germany iyo muxuu ahaa Talyaani waxay bilaabeen inay ururiyaan dhacdooyinka caalamka kuwa ugu muhiimsan ee gacanta lagu qoray si markaas ay ugu faa'iideeyaan iyagoo u isticmaalaya si saxaafadaan u isticmaalaya shaqaalaha xeyndaabkooda ee ku jira si ay ugu faa'iideeyaan hase yeeshee Paris iyo Britain xukuumadii ka jira barigaas ayaa waxay isku hawleen markaa wixii ka dambeeyay in arrimahaas daabacad lagu sameeyo balse Jarmalka ayaa ku guuleystay markii ugu horeysay in uu daabaco dhacdooyinkaasi isagoo sameeyay makiinada linotype loo yaqaan ama biyombaha loo isticmaalo alxanka loo isticmaalo oo markii ugu dambeysay xataa madbacadeena qaranka oo la jirtay marka Jarmalka waxay ku guuleysteen sanadka markuu ahaa waxaan filayaa 1605 ayay ku guuleysteen inay madbacad sameeyaan markaana ay soo saaraan markaas wargeyskii markaasi ugu muhiimsanaa ee ugu horeeyay ee Jarmalka ay soo saareen waxa uu magaciisa uu ahaa Relation Phenomenon und ayuu ahaa kadib Ingiriiska ayaa ka daba qaatay isaguna soo saaray sanadka markuu ahaa 1700 sida aan filayo 55 waxa uu soo saaray wargeys kaasi oo uu ugu magac daray markaasi The Current General News kadibna 1788kii Ingiriiska waxa uu soo saaray wargeys kale oo loogu magac daray markaa isaguna waa The Daily Universal Registration iyadoo markii dambana oo wargeyskaasi uu la magac baxay magaca wargeyska caanka ah ee loo yaqaano The Times dhinaca kale bilaabashada raadiyaha iyo TV-ga ayaa la dhihi karaa waxa ay warbaahinta dunida ka mid noqdeen xilli dambe mawjadaha raadiyaha waxaa markii ugu horeysay aqoonsaday saynisyahan reer Jarmal oo la yiraahdo Heinrich Hertz sanadii 1886 sidoo kale waxaa hindisaha raadiyaha hormariyay saynisyahanka Talyaaniga ee Guglielmo Marconi aakhirkii qarnigii 19aad isagoo sameeyay wireless telegraph sanadii 1895 balse in raadiyaha si caadi ah dunida looga isticmaalo waxay ahayd bilowgii qarnigii 20aad idaacadaha markaan eego iyagu waxay aad u soo banbaxeen qarnigii 20aad gaar ahaan sanadihii 30aadkii iyo 40aadkii TV-ga isagu waxaa si tijaabo ahaan loo bilaabay dagaalka labaad dunida wixii ka dambeeyay 1945 inta ka dambeysay ayaa si tijaabo ahaan loo bilaabay markii dambe aad buu ugu shaacay dunida balse TV-ga waxa uu ka baxay darka kadib markii qarnigii 21aad bilowgiisii uu soo baxay ama dunida ay ku talaabsatay teknolojiyada casriga ee uu soo baxay muxuu ahaa internetka Mareykankana uu ugu horeeyay oo si aadahi muxuu ahaa ugu guuleystay oo markaas bilaabay saxaafadda ay ka mid tahay Rocky Mountain, Chicago Tribune iyo Los Angeles Times
marka aynu u imaano bilaabashada warbaahinta soomaaliyeed ayaa la dhihi karaa waxa ay si rasmi ah u curatay sannadihii soddomeeyadii ee qarnigii tegay haddaba magaalooyinka jabuuti hargeysa iyo muqdisho ayaa ahaa meelihii ugu horeeyey oo ka bilowday warbaahin ay leedahay qowmiyadda soomaaliyeed oo ku hadla magaca dadka soomaaliyeed kuwaasoo ka soo horjeeday gumaysiga ku habsaday dhulkooda. marka aan ka hadlayo horena waan u sheegnay saxaafadda soomaalida waxa ay ka mid ahayd waa qayb ka mid ah saxaafadda dunida waxayna leeyahay taariikhda ay soo bilaabatay laakiinse waxaa si aada loo sheegaa oo loo soo hadal qaadaa in saxaafadda soomaalida ay si aada u bilaabatay kadib markii dadweynihii soomaaliyeed ee iyagu ka tegay waqooyiga iyo koonfurta ee ka qayb galay dagaalweynihii koowaad ee dunida ee ay ka soo laabteen dagaalka ayaa waxaa markaasi aad u soo banbaxay fakarka ah dareenka wadaniyadeed fakarkaasu aad u saameeyey dadyooga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba waxayna bilaabeen markaasi in ay ka tashi ay raadiyaan. haddaba sanadkii 1930 markii la joogay ay taariikhdu ahayd ee dagaalka koowaadna uu dhammaaday kii labaadna ay ka dhiman tahay 6 sannadood ay ka dhiman tahay ama ay ka harsan tahay ayaa Jabuuti waxa ay ku guuleystay waa magaalada Jabuuti ayaa waxa ka soo baxay wargeys magaciisu ahaa codka shaqaalaha kaasoo ay sameeyeen koox ka kooban shaqaalihii berigaas joogay Jabuuti. wargeyskaasi loogu magac daray codka shaqaalaha kadib markii uu bilaabay fidinta ahdaaftii ama ujeedooyinka ay lahaayeen ee ahayd gumaysiga dirarka ayaa Faransiiska waxa uu arkay arrintaas in ay ka dhan tahay ujeedooyinka uu ka lahaa qaaradda Afrika. waxa uu markaasi amar ku soo saaray Faransiiska in la mamnuuco oo la joojiyo wargeyskaas isaga mataatanba uunan ka soo bixin mar dambe halkaas. hase yeeshee fakarkaasi ma noqon mid ku kooban ama ku gaabta Jabuuti oo keliya. sanadkii 1936 ayaa misana Hargeysa waxaa lagu arkay wargeys kale oo isna loogu magac daray ama magaciisu ahaa As-Soomaal. wargeyskaasina waxaa diyaariyey oo markii hore asaaskiisu lahaa koox aqoon-yahano ah ee reer Somalilandes ah oo iyagu deganaa Cadan waa magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen. marka wargeyska halkaas ayaa lagu daabici jiray sidaas loo soo gelin jiray markaasi Somaliland gaar ahaan Hargeysa. haddaba ifafaalihii iyo dareenkii wadaniyadeed ee uu kordhiyey wargeyskaasi ayaa gumaystihii Ingiriiska ee berigaasi markaasi ay gumaysan jiray waqooyiga Soomaaliya waxa uu arkay in ay dhibaato ku yihiin muxuu ahaa ahdaaftii uu ka lahaa ama ujeedooyinka uu ka lahaa Soomaaliya. then waxa uu amray in dib dambe aan wargeyskaasi loo soo gelin Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliya intaba. laakiinse waxaa asaaskiisa iska lahaa aqoon-yahano u dhashay Somaliland ayaa iska lahaa waxayna ku daabici jireen Cadan oo ka tirsan dalka Yemen sidaasuna ku imaan jiray muxuu ahaa Hargeysa. hase yeeshee taasi ma aysan noqon ama tallaabada uu qaaday Ingiriiska ma aysan noqon mid joojisa halgankii iyo dareenkii wadaniyadeed ee ay dareemeen dadyooga Soomaaliya meel kastoo ay joogaanba. sanadkii 1943 gaar ahaan bishii May 15 markii la asaasay ururkii SYL ee gobonimada Soomaaliyeed ee isaguna ka dagaalamaya dhinaca koonfurta ayaa waxa uu sameeyey wargeyskaasoo uu ugu magac daray Al-Wixda isna ku qornaa afka Carabiga ku qornaa. marka saxaafaddu waxaad moodaa saxnuuni inay qayb weyn ay ka soo qaateen halganadii gobonimada ahaa ee Soomaaliya ay la soo gashay gumaysiga si ay u gaadho madax bannaanideeda.
وهجاج intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa qaybta koobaad ee barnaamijka taariikhda warbaahinta Soomaaliyeed iyo marxaladaha ay soo martay barnaamijyada xiga ayaan ku qaadaa dhigaynaa wariyaashii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee ka howlgalay warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo kaalintii ay ka qaateen dib u helida madax banaanida dadka Soomaaliyeed